bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka xanta oo idin hayo qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid a ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyne xaaf oo kulamo iska soo horjeeda kuwada yeeshay Cadaado iyo Dhuusamareeb. waxaad kaloo daawan doontaan beelaha Muqdisho iyo madaxweyne Farmaajo oo gaaray heshiis ku meel gaar ah. xog iyo xaqiiqo qarsoon ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. madaxweynaha Puntland oo u yeeray jenaraal uu ka mid yahay Morgan iyo qorshaha ka dambeeyda oo aan idin soo gudbin doonaa. gudoomiye xilka laga qaaday gobolka Hiiraan oo sheegay in uu ka badbaaday isku daydil. Somaliland oo shaacisay in ay musaafirisay nin diinta Kirishtanka faafin jiray. iyo dowladda waddanka Mareykanka culays weyn saarayda wada shaqaynta Soomaaliya iyo Somaliland. intii aad daawateen saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo dhammaystiran. aan ku bilaawna warkeena faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulamo kala duwan oo xalay ka kala dhacay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb oo gobolka Galgaduud ka wada tirsan. madaxweynaha Galmudug ayaa xalay gaaray Cadaado waxaana si ballaaran halkaasi ugu soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. xaaf oo ku hoyday xarunta madaxtooyada Galmudug ee Cadaado isla markaana uusan tagin muddo ka badan hal sano ayaa halkaasi waxa uu uga qayb galay kulamo xasaasi ah oo ka dhacay magaaladaasi. shirkan ayaa ay wada qaateen xildhibaano uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Bukhari iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee maamulka Galmudug gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee maamulkaasi. lama shaacin natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday shirkaasi oo weli ka soconaya magaalada Cadaado ee Galgaduud sida aan ku helino wararka. dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee isla Galgaduud ayaa ku waramaya in halkaasi xalay lagu qabtay kulamo gooni ah oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu qayb ka ahaa. kulamadan waxaa wada qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Kheyre iyo madaxa Ahlusunna wal Jamaaca ee ku sugan magaaladaasi. intooda badan waxaa looga hadlay arrimaha doorashada maamulka Galmudug oo ay dowladdu ku dhawaaqday in la qabanayo 4 bisha soo aadan ee July. xiisada ayaa u muuqata in ay ka sii dareyso maadaama labada dhinac ay si aad ah ay u kala fog yihiin. meesha lagu qabanayo doorashada ayaana ah caqabada ugu weyn ee maamulka Galmudug xaalad siyaasadeed ahaan hadda ay ka taagan tahay. lama oga halka ay saldhiga doonto dadaalada socda oo qasbay in ugu dambeyn uu ku biiro ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. sida ay ogaatay xanta wararka heshiisku meel gaar ah ayay gaareen odayaasha dhaqanka beelaha daga gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. heshiiskaasi oo ku saabsan go'doonka saaran magaalada Muqdisho. heshiiskan oo aan ku iman rabitaanka dowladda balse la sheegay in uu ku yimid cadaadis la saaray ayaa lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. malaaqa beelaha Abgaal iyo odayaal kale oo ka socday waxgaradka gobolka Banaadir ayaa madaxweynaha waxa ay kulamo kula qaateen villa Soomaaliya toddobaadkan waxayna madaxweynaha ku wargeliyeen in aysan mas'uul ka ahayn go'aan kasta oo ay qaataan dadka daga gobolka Banaadir intaan ka badanna aysan hortaagnaan karin cabashada dadweynaha. goobta uu shirkan ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa wasiirka amniga Islow oo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, siyaasi Salaad Cali Jalle kuwaasoo dhammaantoodba madaxweynaha ku wargeliyay culays ka haysta u kala garqaadida dowladda Soomaaliya iyo odayaasha. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa imaamka iyo dadkii la socday waxa uu ka dalbaday in dowladda la sugo ilaa 1 Luulyo ama toddobaadka xurriyadda kadibna dowladda Soomaaliya ay furi doonto wadooyinka gobolka Banaadir. odayaasha ayaa aqbalay balse waxaa jira warar kale oo sheegaya in aysan xaqiiq ahayn hadalka madaxweynaha ee uu doonayo inuu ku dejiyo imaamka iyo dadkii la socday. madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa Xasan Cali Kheyre ayaa ku kala aragtiyo duwan marka la fiiriyo go'aanka madaxweynaha ee furidda wadooyinka waxaana laga yaabaa in aysan suurageli weydo ballanqaadka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee ku aadan in wadooyinkan la furo. dhanka kalena gudoomiye xilka laga qaaday ee gobolkaasi Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed
ayaa sheegay in markii saddexaad uu ka badbaaday dil qorsheysan. shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Beledweyne ayuu ku sheegay in shalay la weeraray isaga isla markaana ciidamo Soomaali iyo ajaanib ay isugu jira ay weerarka ku soo qaadeen si ay u dilaan, ha yeeshee isaga ay suuragal u noqotay inuu badbaado. Yuusuf Dabageed intaas waxa uu ku daray in dulmi cad lagu hayo shacabka reer Hiiraan isla markaana mas'uul uu ka yahay madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo xulafo uu wato sida uu hadalka u dhigay. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa ugu baaqay in talada reer Hiiraan la soo farageliyo isla markaana 2 sano iyo bar dhibaato lagu hayo shacabka reer Hiiraan sida uu yiri. hadalka Yuusuf Dabageed ayaa ku soo aadaya xilli maanta la sheegay in hoyga uu ka degan yahay ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM walow markii dambe xiisad ka dhalatay ay odayaasha dhaqanka xaliyeen. waxaana la soo warinayaa in magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hadda xiisad laga dareemayo. dhinaca maamulka Somaliland maanta ayaa markii ugu horeysay waxa ay shaaciyeen maamulkaasi in deegaanadeeda ay ka masaafurisay nin haysta dhalashada wadankaasi Mareykanka oo in muddo ahba magaalada Berbera ku faafinayay diinta Kiristaanka. isku duwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka Somaliland ee gobolka Saaxil ayaa maanta isagoo la hadlayay warbaahinta xaqiijiyay in ninkaasi faafinaya diinta Kiristaanka uu magaalada Berbera ku soo galay qaab ganacsi ahaan markii hore. isku duwe Maxamed Axmed Xuseen ayaa waxa kale uu sheegay in ninkaasi uu dhashay dalka Mareykanka lagana masaafuriyay magaalada kadib markii ay ogaadeen inuu faafinayo diinta Kiristaanka oo uu u qaybinayay buugaagta Baabalka. waxaana uu yiri waxaa jirta hadda muddo laga joogo 2 bilood in nin dhalashadiisu tahay Mareykan oo muddo sanad ah joogay wadanka sida uu yiri. ninkaasi run ahaantii markii ugu horeysay waxa uu ku soo galay sifo ganacsi, muu ahayn suxufi. sifo sharciyana wuu ku soo galay. ninkaasi waxa uu dabagal aad u ballaaran ku sameeyay maamulka gobolka Saaxil. ninkaasi waxa uu faafinayay diinka Kiristaanka oo Bible-kii oo af Soomaali lagu tarjumay. xaggiisa dambana waxa ku yaala kitaabka Quduuska. ninkaasi markaan in badan dabagal ku sameynay waxaynu ogaanay in howsha isagoo wado, sidaas darteedna waan ceerinay, mana ogolaan doono in ruux faafinaya diinta Kiristaanka uu deegaanada Somaliland uu ku sugnaado sida uu yiri. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay qasriga madaxtooyada waxa uu Garowe qada sharaf ugu sameeyay qaar kamid ah generaalada maamulka Puntland uu kamid yahay madaxweynihii hore ee Puntland General Cabdisamed Cali Shire. kulanka qada sharafka ahaa waxa madaxweynaha ku weelinayay ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash, saraakiil ciidan iyo la taliyayaal dhinaca amniga oo kulanka qayb ka ahaa. xubnaha uu yeeray Dani waxaa kaloo kamid ahaa General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo aad looga yaqaano guud ahaan Soomaaliya. madaxweyne Dani ayaa wada qorshe xoogan oo lagu tayeynayo ciidamada maamulka Puntland taasoo qayb ka ah ballanqaadyadii uu sameeyay intii aan la dooran ee musharaxa uu ahaa, isagoo sheegay in uu soo celin doono dhammaan dhulka laga haysto maamulka Puntland oo uu sheegay sida uu hadalka u yiri maamulka Somaliland inay haysato. Dani ayaa sida uu sheegay tiigsanaya dhismaha ciidanka in ahmiyad gaar ah la siiyo tan koowaad laga dhigo waxtarka iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida. Dani ayaa sida uu sheegay tiigsanaya dhismaha ciidanka iyo ahmiyadda koowaad in la siiyo waxtarka iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida si buu yiri loo soo afjaro al-shabaab iyo Daesh la dagaalankooda, sidoo kalena la sugo amniga xuduudaha maamulka Puntland. ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani ayaa mas'uuliyiinta kala tashanaya xaaladda amni ee deegaanada Puntland oo ay hadda wada tashi xoogan ka galayaan tala wadaag iyo wax wada lahaansho dhan walba. generaaladuna ay ka mid yihiin waxgaradka iyo indhayar garadka deegaanada maamulka Puntland ee dhinaca amniga marka la fiiriyo.
ugu dambeyntiina saaxiibayaal danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaa u waramay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida waxaana uu ka hadlay doorashooyinka Somaliland iyo wada shaqeynta Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. Danjira Yamamoto waxa uu sheegay in Mareykanku uu aaminsan yahay in xasiloonidu ay ku imaanayso dowlad wanaaga iyo sidoo kale in la oofiyo ballamaha dhowrista dimuqraadiyadda ee loo qaaday hogaamiyayaasha iyo guud ahaan bulshadaba. Yamamoto ayaa sidoo kale xusay in uu ka dhawaajinayo in cid kasta oo doonaysa in ay maalgashi ka sameyso Soomaaliya ay marka hore daraasad ku sameyn doonto dowlad wanaag ka jira guud ahaan deegaanada Soomaalida. Yamamoto sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in Somaliland aysan wali aqoonsi ka helin beesha caalamka, sidaas darteedna uu Mareykanka u arkayo in uu xooga saaro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Somaliland iyo dhammaan maamul goboleedyada dalku ay sameeyaan isdhexgal xagga dhaqaalaha iyo xag walbaba ah. Yamamoto waxa uu si gaar ah u carabaabay in isdhexgalka Soomaaliya iyo Somaliland uu wax badan ka bedeli doono sida hadda ay yihiin, waxaana uu yiri runtii haddii aad eegto Somaliland iyo Soomaaliya horu socod ayay sameynayaan, waana ay caawinayaan in hore loo socdo, hore ayay u socdaan labaduba. Waxaan filayaa in 5 sano ee soo socda aad arki doontaan in ay aad uga duwanaadaan sida ay hadda yihiin, dhinacyo badan leh si ay horu socod u noqoto. ugu dambeyn danjira Yamamoto waxa uu ka dhawaajiyay in Somaliland iyo dowladda Soomaaliya ay ku qasban yihiin in ay yeeshaan wada shaqeyn dhinacyada oo dhan ah si ay hor u socod u noqdaan oo ay u hormaraan sida uu yiri. waanaga inta saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xanta wararka waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warkayaga. waxaan idin xasuusinayaa inaad dhahdo subscribe haddii aad ku cusub tahay channelkan, like aad siiso qaybta hoosena aragtidaada aad nugula wadaagto.